marka soo dhawow gobol nabadeed weeye sidaa ugu baaqdaan kugula baaqnay 14 iyo boqolka quraanka cadadiisa aan ku soo dhaweynina kulli raali ka nahay waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow magaaladii Galinsoor oo nabad ah ku soo dhawow farxad iyo khayr ku soo dhawow nabad iyo sidii aad rabtay ku soo dhawow in raali laga yahay imaatinkaaga iyo ujeedadaada ku soo dhawow annagu nabadda waa qaadanayna madaxweyne soo jeedshay sharudna ku xirmayno waxaan ku leeyahay Galinsoor ku soo dhawow dalabkaagii iyo odayaasha dhaqankii wax garadkii ku soo dhawow nabadii ku baaqday oo aad tiri maantay magaciinkii bahashana afka hal la qabto nabadiina aan ka wada shaqeyno ku soo dhawow beeshana waxay diyaar u tahay waxaas afka in la qabto deegaanka ka jira oo dhiba waa midda gobosha aad u fidisay oo adigu mas'uuliyadeeda aad xambaarsan tahay madaxweyne soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow reer Galinsoor maalin wanaagsan marka hore waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii gobonnimada iyo walaalnimada lahayd ee lagu soo dhaweeyay aad iyo aad u sareysay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin reer Galinsoor waxaan sidoo kale ka mahadcelinaynaa markii dhibaatadu dhacday oo dhibaatada culus ay dhacday baaqii iyo soo jeedinteennii aan u soo gudbinay bulshaweynta degmada Galinsoor iyo nawaaxigeeda iyo deegaano kaleba bulshada beeshaan ay degan tahay sidana looga aqbalay loo soo dhaweeyay loogu istaagay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa allah idin sharfo walaalayaal mudanayaal iyo marweyn safarkeenu wuxuu ku saabsan yahay sida horeba u sheegnay inaan dhibaatadii dhacday uga nimaadno beelweynta deegaankan degan oo aan marka hore ka tacsiidayno dhibaatadii dhacday marka labaadna inaan dhib kala dhicin ama aan mid kala dhicin aan ka qayb qaadanno annagoo kaashanayna waxgaradka odayaasha salaadiinta siyaasiyiinta ganacsatada bulshaweynta beeshaan ee dhibaatadaasi soo gaartay annagoo kaashanayna inaan dhib damba dhicin inaan ka qayb qaadanno oo aan ka tashanno oo aan halkaa u nimid safarkeeda iyo socodkeeda intaasu ahaa waxaan rabnaa mar kale mudanayaal iyo marweyn inaan adkayno nabadii dhibaatada dhacdayna dhexda la qabto oo usha dhexda laga qabto waxaan rabnaa inaan si gaara dhibaatada dhacday aysan noqon mid la yidhaahdo dhibku waa dhici jiray wixii horuu ka mid yahay mid waxaan rabnaa ka duwan oo dowladduna ay gacan ka geysato dhinacii kale oo dhibku ka dhacayna kaashato lagana samafalo waxna laga qabto dhibaatadii dhacday waxaan rabnaa beeshu iyadoo ku mahadsan intii haddaba soo dhacday ama la sameeyey oo mahad ballaaran ka celinayno oo aan hawshaasi faraha ka bixin hadda inaan ku adkayno inay gogoshaas nabadda fadhiistaan hawsha dhibkii dhacayna xalkiisa iyo xolooshiisa ay nagala qayb qaataan dowladduna sidaan hore u sheegnay xil gaara bay iska saaraysaa si gaaraheed ay u gutanaysaa haddii la yidhahdo allah subxaanahu wa tacaala waxaan warsanaynaa inayn dhibkaasi nagu soo laaban oo intaas dhib ku filan dhibaato adduun iyo aakhiraha ku filane inaysan nagu soo laaban
dhinacyada kale oo ama dhibku ka dhacay ama deegaanka iyo nabaddu ay qusaysana waana la hadalnay waana ku maqannahay gobasheeda iyo garowshaheedana si hordhacana waa loo sheegay waxaa ka dhimanna waa gudagelaynaa waa dhammaystirnaa insha allahu tacaala dagaaladani waa iska mashkulado soomaalida oo dhan iska haysta waad ogtihiin meel soomaaliya ka mid ah oo aan dhibaata ka dhicin oon dagaaladani ka dhicin ma jirto waxaad kuwani uga yar duwan yihiin waa dagaalo daba dheeraaday nus qarni ayaa dagaalada qaarkood aad ogtihiin inay socdaan dhibka marba in hala ekaado laakiin nus qarni ayay sii maraysa waxaan rabnaa ilaahay idankii inta alla tala saarano inaan markaan si weyn oo aan kala har lahayn oo dadaalka innaga isu geyno inaan gobasheeda iyo nabaddaa sidii salka loogu dhigi lahaa inaan uga shaqeyno inaan dhibka la istaajiyo ka sokow waxaa noo weliya gobashii nabadda ayaa noo daba taalla odayaasha iyo waxgaradka ayaana isla farsamayn doonaa oo si gaara u heli doonaa haddii la yidhahdo qaybaha kale ee degmadu ay u baahan tahay oo halkaa lagu soo koobi karin maantana waa bilaabaynaa muddada dhowna waxaan rabnaa reer Gallinsoor oo degmada iyo horumarkeedu degmooyinka kale mashaariicda ay heleen xawaagii ay ka dambeysay laga daba keenay inaan isla soo gaarno insha allahu tacaala keligeedna ma ahane degmooyinka cusub oo dhan ayaa waxay u baahan yihiin deg deg in loo soo kabo oo lasoo qaado ee Gallinsoor kaliya maaha taasna waa intaas reer Gallinsoor waxaan rabaa inaan ugu dardaarmo horumarka mashaariicda dib u dhiska nolosha waxaasoo dhani waxay salka ku hayaan ama saldhig u ah waa nabadda inaan waxaan rabaa sida maanta sabirka leh dulqaadka leh gobonnimada leh wixii dhacay loogu sabarsan yahay inay reer Gallinsoor waxaan rabaa nabadda si gaara isugu taagaan magaaladana ay noqoto magaaladii si horeba u ahayd magaaladii gobasha magaaladii nabadda magaaladii loo soo aadi doono haddii la yidhaahdo xasilooni iyo nabad iyo wada noolaansho taasna waxaan ka codsanayaa reer Gallinsoor inay si gaara isugu taagaan sal lagu fadhiisto oo nabad ahayn ma jiro wax la qabsado oo nabad ahayn oo nabad aan ku imaana ma jiraan taana intaasaan leeyahay iyo bulsho weynta degmada Gallinsoor waxaan kaga mahadcelinayaa sida aad dhibaatadii dhacday u maarayseen guluf dambe uga daba imaan taas gobonnimadaasna waan ku ammaanaynaa waan idinkugu ducaynaynaa inta farsamada iyo faahfaahinta iyo gobasha iyo qaabka aan wax u dhibaatadii dhacday uga samafalaynana odayaasha ayaan ka wada hadlaynaa iyo dadkii loo xil saaray oo hawshaa gobasheeda gelaynaa mar kale aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa noo ballanaa nabad samar dulqaad iyo xasilooni wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu